haddaba waxaa dhacday gabadhii waxay sugaysay in odageedii uu wado oo ka wado waddanka Kenya uuna u wado waddankii markaas asaga uu deganaa. laakiinse waxaa dhacday in ayadii booskeedii lagu bedelo saaxiibadeed oo ninkeedii kaxeysto gabadhii ayada saaxiibadeeda ahayd. intaasi looguma simine gabadhii waa la furay maalinkaas. haddaba maxaa isleedihiin sababtaas way keeni kartaa? ma gabadhan ayada ayaa qaldan misena waa la dulmiyey oo waa qof madluum ah? idinkoo aanan dhamaysanina ma ogaan kartiin qisada macnaheeda iyo waxa meesha ka dhex dhacay markaas. haddaba muuqaalku daawada bilaaw ilaa warahmatullahi wabarakaatu. walaalaha qaaliga ee ku xiran janalkayga Muneza meel walba adduunka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan rajayna. fadlan haddii ay tahay marka ugu horeysa janalkayga soo booqanayso waxaa kaa codsanaa inaad subscribe noo saarto, beelkana aad furato, muuqaalka like-ta aad saarto, asxaabtaada aad la share garayso, wixii ra'yigaagana hoos noogu reebta. aad iyo aad aan u mahadsantiin asxaabta cusub iyo asxaabta hore ila joogi jirta. jazaakumullahu khayrna idin leeyahay dhammaantiina in aad iyo aad u mahadsantiin. waa mar kale iyo muuqaal cusub iyo qiso cusub iyo anigoo ah walaashiina Muna. aad iyo aad idinku xiisay labada maalmood aan kala maqneen. marka walaalay qaaliga ah qisadan waxay ku dhacday saddex qof ayay qisadan qosaysaa. waa laba gabdhood iyo wiil. wiilkan wuxuu ku noolaa waddan ka mid ah wadamada Yurub. gabdhahana waxay ku nool yihiin Kenya, Nairobi, magaalada Nairobi ayay ku nool yihiin. laakiinse wiilkan waa uu diiday in markaas la shaaciyo la sheego waddanka uu joogo. laakiinse wiilkan wuxuu ku noolaa waddan ka mid ah wadamada Yurub ayuu ku noolaa. haddaba wiilkan wuxuu leeyahay waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in markaas ay iga qabato in markaas aan familkeygii iyo eheladeydii iyo waddankeygii aan booqasho ugu tago, aan dalxiis u tago, dadkeygii aan soo arko, waddankeygii aan soo arko, xaaladihiisii aan soo arko. haddaba wuxuu dhahay safarkeygii wuxuu kasoo bilowday waddankii markaas aan joogay aniga oo markaas ku wajahan uu dhahay waddanka Kenya ee magaalada Nairobi. haddaba waxaa dhacdoo leeyahay in aan isku barano oo leeyahay gabar Soomaaliyeed waddankan Kenya. waxaana isugu barnaa waxay too yiri oo aan ku bartay wiil aan aniga saaxiibo ahaan jirnay xilli hore inta aanan soo aadin waddankan Yurub aanan soo aadin ayaan wiilkan saaxiib ku ahayn Soomaaliya. gabadhii ayuu i baray. marka isbarnay kadibna gabadhii waa gabar aad iyo aad ii soo jiidatay ahayd. aad iyo aad ayaana oga helay quruxdeedii maxay ahayd dabeecadeedii markii lay baray. haddaba Nairobi waxaan joogoo yiri muddo ka yar bil 20 maalmood ayaan joogay. 20kaasi maalmood gabadhii waxaa dareemoo yiri jaceyl aad iyo aad oo dhankeeda ah, rabitaan, maadaama ayna aheedoo yiri aniga marka ugu horeysay oo qof si yacni sax ah ama maxay ahayd si daacada yacni qalbigeyga u gashay ayay ahayd gabadhaasi. telefoonadii la kala qortay. wiilkan wuu soo baxay oo wuxuu soo aaday waddanka Soomaaliya. wuxuu dhahay waalidkeygii iyo dadkeygii iyo familkeygii ayaan waqti la soo qaatay. kadibna waqtigii bixitaankeygii waqti badan iga harsan tahay ayaan waxaan ku soo laabtay magaalada Nairobi. haddaba waxaa dhacday in gabadhii jaceylkii iyo rabitaankeygii iyo wax walba oo baahideeda ah aan u soo bandhigto, ayadana aan wareysto wixii markaas ay ka qabto. gabadhii waxay igu dhahdoo yiri waxba kama qabo, waxa markaas adiga ii soo jeedisay wax ceebana ma ahan, wax jiri waaye oo na jiri doono. gabadhii markii ay sidaasi dhahdoo dhahay hadalladeedii aad iyo aad ayaan ugu qancay. aad iyo aad ayaana maxay aheeto aan oga helay deganaan. markii bixitaankeygii uu soo dhawaaday kadibna gabadhii waxaa usoo bandhigay oo waxaan dhahay maadaama hadda aan baxaayo waxaan jeclahay inaan isguursano oo aan isxalaashano. kadib markii aan baxo aan kuu soo dacwoodo kadibna aan kaa wado waddankani Kenya. gabadhii wuxuu dhahay waayaha ayay igu tiri. sidaasi ayaan isku mehersanay. isbuuc waxaan kusoo qaadanoo dhahay 7 hotel ku yaalo
magaalada Nairobi. Hoteelkii markii aan kasoo baxnay kadibna waxaan u ijaaray ayuu leeyahay gurigaas oo markaas aniga kiradiisii iyo korontadiisii iyo waxay cuni lahayd iyo wax ay cabi lahayd iyo waxay xiran lahayd aniga dusheeda ee noqotay mas-uuliyadeediina aniga aan la wareegay. gabadhan wuxuu dhahay ma ahayn gabar markaas gabar ahayd, laakiinse waxaan ku guursaday garoobnimo. way fahanteen amaleyna. wiilkii waxaa dhacday in bixitaankiisii uu soo dhawaado kadibna sidii uu ku baxo uu ku aado wadankii markaasi uu ka yimid. haddaba waxaa dhacday in markaas mar walba ay wiilkan iyo gabadhan ay iskala socdaan kaamirada maadaama ay kala joogaan laba qaaradood. jaceylkoodii maalinba maalmaha ka dambeyso aad iyo aad ayuu usii xoogeysan jiray, aad iyo aad yacni aana laisku sii xiisi jiray. wuxuu leeyahay aniga ahaanteeda wuxuu yiri mararka qaar waxaan dareemayo yiri in aniga yacni ay ugu badan tahay xiisaha jaceylka markii ayada loo fiiriyo. haddaba wuxuu dhahay anigana dacwadii waxaan ka furay wadankii markaasi aan joogay in lay keeno gabadhan oo waxaan dhahay gabar ayaan soo guursaday, waxaana rabaa in aa ii keentaan gabadhan oo xaaskeyga ah maadaama ay iga joogto wadan kale. waa layga ogolaadoo yiri foomamkii iyo wixii oo dhan yacni waa buubuuxinay, waxaana sugaayay in markaas jawaabta lay siiyo. wuxuu dhahay muddo waxay noqotaba ee sii socoto waxaa kasoo wareegatay muddo sanad ah. waxaa dhacdoo dhahay in maalin maalmaha ka mid ah ay i barto gabar ayada ay saaxiibo ahaayeen. gabadhii markii ay bartay kadib gabadha waxay ahayd gabar aad iyo aad u degan, yacni dabeecadeedana ay fiican tahay. xaaskaygana ma ahayn oo yiri qof markaas xitaa baritaanka ay saaxiibadeeda i bartay mid ahaa by telephone yacni maqal ahaan, laakiinse muuqaal ahaan ayay gabadhii ii bartay. gabadhii markay i bartay wuxuu yiri muddo waxaa kasoo wareegatay isbuuca. waxaa dhacday in gabadhii ay isoo wacdo oo ay i dhahdo waxaan rabaa in aan kuu sheego arrin markaas aniga aan jeclaystay in aan runta kaala hadlo maadaama aan u arkay wiil aad iyo aad u fiican aad tahay, mana istaahishid in sidaan lagula dhaqmo amaba sidaan lagugu sameeyo. wiilkii wuxuu dhahay aad iyo aad ayaan ola yaabay hadallada ay gabadhan igu leedahay oo waxaan dhahay maxaa ka wadaa adigase yaas tahay. markaasaa waxay igu tiroo yiri gabadhan aniga waxaan ahay saaxiibtii lagu baraayay ee ahayd xaaskaaga saaxiibadeeda. xaaskaaga ayaan rabaa arrin in aan kaaga sheego maadaama aniga ku arkay qof daacad ah haddana rabo in uu gabadhii wado, laakiinse aniga waxaan ku dhihi lahaa marka hore ka fiirso inta aadan wadin. wiilkii waxaan dhaho yiri ma waxaa ka xun tahay waditaanka aan wadaayo, ma waxaa ka maseersan tahay saaxiibadaada. yacni hadallo waxaan ku dhaho yiri qof dumara haddii lagu dhaho qalbigeeda dhaawacaayo isla markaasna yacni aan si yacni xitaa aan hadalka kula sii wadi karin oo isla markiiba meesha kaaga keenaayo hadalka markaas uu kula wadaagayo. laakiinse gabadhan ma aysan ahayn oo yiri saas oo hadalkii waa igu waday aniga i dhageysay tiri xaaskaaga markii aa ka maqan tahay yacni qadka markii aa kaga maqan tahay gurigeeda mar walba waxaa joogo dhalinyaro, wiilal, gabdho. waa gurigeeda waa guri jaad lagu cuno, sigaar lagu cabo, maxay ahaydoo shiishad lagu cabo. intaas kaliya ma ahan, waxaa jiro wiil adiga markaas ay kugu kor qiyaanto yacni xaaskaaga. markay arrintaasi dhahday kadib wuxuu dhahay aniga waxaan u dareemo yiri in qoftan ay raadinayso in gurigeenii ay dumiso. waxaan dhaho yiri wax cad la imaw, haddii aa la imaan weysidna waxaa ballan igu ah in aan kuu sheego oo gurigeedana dambe aadan lugtaada soo saarin. waxay tiri wax walba anigaa kuu keenayo, lacagta aad soo dhiibaysid bil walba lagu dhahayo shaygaana u baahanahay kanaa u baahanahay, ha u malaynin inay iyada cunayso dad ayay ku qarash garaysaa, midaasi la soco. haddaba gabadhii markii ay saas wiilkii ku dhahday uu ka aamini waayey waxay samaysay in ay soo duubto gurigii oo la joogo wiilashii gabadhii ayadooba wiil bagiisa isaga dhex jirto. yacni gurigeedii yacni wuxuu yacni la mid yahay guri caadi loo degan yahay. ninkan nin guriga markaas ninkii lahaa ah oo kale yacni u labisan ay laabtiisa ku jirto, shiishada lagu kor cabaayo,
jaadka lagu cabaayo sigaarka lagu cabaayo asxaab badan yacni waa dad meeshaas ku heshiiyey in lagu dhaqleeyo yacni ma aqaano kulli ani wax markaas aan dhaho laakiinse meel markaas fisqi laisugu keeni ayay ahayd gabadhan gurigeeda gabadhaana intaas ayay arki weysay oo wiilkii ayay u naxday saas darteeda ayay arrintii ugu soo bandhigtay gabadhaana ma ahayn gabdhaha markaas ayada la midka ah gabdhaha markaas ku sameynaya gurigaas waxyaabahaas qeyr sharciga ah ee ragga iyo dumarka isugu imaaday aniga waxay tiri duruuf ayaa i keentay oo gabadhan duruuf ayaa ii keentay aniga waxay dhahday waxaan ahay qof magaalada ka shaqeyso oo habeenkii kusoo hooyato oo la seexato gabadhan ayadaana isaga kaa dhigtay in ani ayada saaxiibanahay ee saaxiib manihi sidaas ayay lacag igaga qaadataa jiifitaanka aan la jiifanayo hadda naagta waa naag gaangistarad ah waaye ninkaana kama warhaayo asaga waa daacad ayadana waa khiyaanoole waaye oo nin kale ayay ku khiyaanaysaa oo gurigeediina waa guri la baxaayo la galaayo oo maxay ahayto oo aad iyo aad u fiicneen marka waxay dhahday walaalkay aniga adiga nixitaan aan kuu naxaayo walaaltinimo ah bini-aadamnimo ah soomaalinimo ah ayaan arrintan kuugu sheegay ma ogiye wax kale ma jiro haddii ay ogaatan waxaa laga yaabaa ay tiri in ay dhibaateeyaan ayada iyo asxaabteeda waxaan kaa codsanaa in aadan sheegin haddii kale nolosheedii halis ayay gelaysaa oo aniga dad ayaa u shaqaystaa oo familkeyga ayaa isoo dirsaday oo guri ayaan ka shaqeeyaa maalinkii habeenkiina ayada ayaan la seexdaa oo biilkii markaas waalidkeyga u dira ma ogiye iyadana kira ayaan uga bixiyaa lacagta aan ku shaqeeyo wiilka gabadhii aad ayuu uga calool xumooday markaas nolosha ee ku jirto ee cariiriga ah markaasaa wuxuu yiri aniga hadda gabadhan waxeedii oo dhan waa iisoo wada baxeen oo waxaan rabay in aan wado oo aan keeno meesha aniga ay ila joogto laakiinse wuxuu yiri adiga ayaan ku wadaayaa adiga ayaan ku keenayaa waddankan oo xaaskeyga aan kugu soo wadanaa waa fahanteen maho gabadhii waxay dhahday arrintaas ma laga fiicno hadhooti dhibaato amay kuu keentaa wuxuu yiri aniga xura ahay qarash walba anigaa bixinaayo ma ahanay u dhahay qarash ee ayada bixinayso tan waana dalbaday oo dowladda waa ka dalbaday hadda aniga ma dhahaye xaaskaygii saas ayay igu samaysay amaba waa furay ma dhahaye oo go-aankan waa qaatay arrintaana faraha waa la galay sidii ayaa gabadhii waxaa la gaaray xilligii markaas lasoo wadi lahaa tanna yacni wicitaankii asaga kama yareene caadi ayuu usoo xiriirinayay wejiga uma bedelin laakiinse waxaa dhacday in wiilkii uu soo baxo uu yimaado waddankan Kenya ee magaalada Nairobi gabadhiina wada kulmaan asaga oo markaas u sheegayo in ay bixeyso bixitaankeedii iyo waxeedii oo dhanna gacanta yacni uu ugu wado ayna dhammaystiran yihiin aadtii aaday u farxday markii uu arrinta uu u sheegay laakiinse wuxuu yiri qofta bixeyso adiga ma ahan ee waxaa bixeyso saaxiibadaada aadtii aaday u naxday markii ay naxday kadib waxay dhahday maxaa keenay sababtaas maxay tahay aniga igu leedahay waa joogaysaa oo saaxiibada ayaa la wadaa qofka xaaskaaga ah ee xaq u leh waa aniga xaq uma lehidoo yiri waxaa tahay qof aanan sharaf lahayn waa kana markaasoo tusay fiidiyoyadii iyo wixii uu tusay markaasoo yiri waxaan oo dhan soo adiga ma ahan insaana ii sameysaa markii aan ka maqanahay markii aan kula joogan waxa iska dhigtaa qof fiican oo sharaf leh laakiinse sharaf ma lihid anigoo ka maqan sidee ninka la laabtiisa u gashay hadda waxaa rabtaa u maleynaa oo yiri markii aad baxdid oo aan ku geeyo waddankaas in nimankan alaabta aad ka galaysid aad wadatidaa rabtay inaa i qayaantid hadda meeshii buuq ayaa ka dhacay buuqii kadib gabadhii waxay bilowday in markaas ay dacwad ay furto ay dhahdo ninkan wuu i guursaday intaas yacni ma i biili jirin ma i yeeli jirin kan waayo wax adiga yacni dambi inay kor ay ka saarto way soo dacweysay laakiinse wiilkan xawaaladii markaas lacagta ugu soo diraayo wixii oo dhan uu banaanka soo dhigo wuxuu dhahay waa kana bil walba lacaga u soo diraayay gabadhan guri ijaarkeedii wax walba anigaa bixinaayay waxaana ku heshiin in aan wado laakiinse waxay noqotay qof khiyaanoole ah anigana qof khiyaanoole ah ma wadanayay meesha ayuuna ku furay sidii ayuuna kusoo guursaday gabadhii ayada markaas saaxiibaha ay ahaayeen tii ayuuna soo watay uu keensaday waddankii markaasi
uu joogay. haddaba wiilkan iyo gabadhan dambe ee saaxiibada ah ma isleedihiin gabadhan waa ay dulmeen mise ayada ayaa dulmaysay wiilka gabadhan kaloo saaxiibada ahaydna wax fiican ayay samaysay mise wax xun ayay samaysay. marka walaalahay qaaliga ah khiyaanadaas aadkii aadka u weyn ayay ninkeeda ku sameynaysay. mana fiicno qofka biniaadanka haddii uu ku aamino ama maxay ahayto uu ثقة آمناد وأسكمد هدي وقفك وكاسمست ما أهن إن يعني أمل كيس ليشت أما محيئته رجدي سي أما وحس إنا كعيارته ولا في عين هاي أيضا جسدي دي أي قاعدتي محايلة والقيانة مبوحسمه بل محاكا دي بلا هديني كده إداعت ونقول لهاد ووضلها ودنك ومركز جوغن ووكيسن لها nolol qurux badanna maanta waa ay ku noolaa lahayd laakiinse nolosheedii si kama yar ayay isku bedashay oo gabadhii ayada markaas soo muteysatay xitaa ayadoo dhibane ah oo dhibaateysan lacagtii yareed ay soo shaqaynaysay ee ijaar uga sii qaadinayso waa ayadoo habeenkii kaliya seexinayso. marka qof bini'aadannimo iyo damiir iyo maxay ahayto insaaniyadnimo lahayd maba aheenbo. aniga way u qalantaa ayaanba leeyahay in la furo lagana tago heerkaasna lala gaaro. idinkan wixii ra'yigiina hoos noogu reeba. haddii aad ka hesheen qisada asxaabtiina la sheer gareey bilis muuqaalka laagta noo saar. inta videoga mid lamid ah ku kulmi doonana. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.